حلالي واحد ربطنا نسوق قرطوة ودا كذا كهر ما فيس تو فيس كهر ما ركبت لو فارو kulanti wanaagsan daawadayaal halka aniga la socotaan waa channelkeena waa yaabaysa media intiina horena la socotay barnaamijka ku horeeyay waxaan kugu soo bandhignay Faysal Xawaase iyo Naciimo Joker inay kala tageen isla markaana Naciimo Joker ay guursatay wiil yar hase yeeshee Faysal Xawaase oo live ku jira ayaa waxa comment u soo qoray wiilka cusub ay guursatay Naciimo Joker waxa uu ku yiri waxa taa Faysal wax matare maxuu bal ugu jawaabay fiirso fiidiyoga حلالي واحد ربطنا نسوق قرطوة ودا كذا كهر ما فيس تو فيس كهر ما ركبت لو فارو sida aad arkaysaan Faysal wajigiisa waxa ka muuqata caro aad iyo aad u xun taasoo ku kaliftay inuu waxyaabo xun xataa afkiisa ka soo baxaan oo aan looga baran balse waxa laga yaabaa inaad weydiinaysid maxaa Faysal caradan ku kalifa Faysal waxa lagu sameeyay wax laga caroodo maahan wax xataa laga dagaalamay ahaayeen hadii si loo fiirsho asaga ayaan afkiisa ka faahfaahin doona xataa waxa uu sheegay inuu Naciimo Joker furin oo ayadu ka maqaalifayso isaga tagtay fiidiyoga dhexdiisa ku soo bandhigi doono fiidiyoga live kan dheer oo ku jiray ayaan qayb ka mid ah ku soo bandhigi doona fiidiyoga qayb dambe Faysal asagoo oo Naciimo Joker qaba iyo Naciimo Joker isaga tagtay oo ay nin kale ka raacday sida fiidiyoga hore baan ku soo bandhignay barnaamijka ka horeeyay Naciimo Joker iyo Faysal Xawaase nasiib u yeelo waayeen inay wada kulmaan ama ay wada baashaalaan Naciimo Joker wadanka Mareykanka ay degan tahay Faysal Xawaase wuxuu degan yahay wadanka Sweden asagoo oo sharci la'aan ah Naciimo Joker mar ay isku dayday inuu tagto Sweden ugu tagto maadaama iyadu ay sharci Amerikaan leedahay markii ay tagtay Sweden iyadu oo joogta ayaa isla hamiinkii ay tagtay gudaheeda la soo celiyay maadaama ciidanka booliisku sida la sheegay ee Sweden ay ku qabteen waxyaabo sharci darro ah oo wadanka mamnuuc ka ah Naciimo Joker markii la qabtay isla hamiinkii airport dhexdiisa lagu hooyay subaxdiina hadana diyaarada lagu soo celiyay wadanka Mareykanka lagu hore loogu soo celiyay Naciimo Joker marka uma aysan suurtagelin inay xaajigeeda waqti la soo qaato u tagto sidoo kale Faysalna sharciba ma uu sahaynba oo ugu tago ama oo xaaskiisa ku soo boqdo Naciimo Joker marka waxay door biday maadaama ay Faysal u tagi karin in ay kala tagaan ka bacdina ay guursato iyadoo nin kale wadankaas ka guursato nin raadsato laakiin Faysal uu ku adkaystay in qarash badan uga baxay guurkeeda sidaas daraadeedna asagoo aan wali aysan is wada arkin inuusan furi karin Naciimo Joker isla markiiba waxay qaatay go'aan Faysal oo furan ayay nin kale saaxiib ka dhigatay si aadana social media uu soo bandhigtay fiidiyoodiisa iyadoo fiidiyo romantic la jilaysa oo la joogta saaxiibkeedii sida fiidiyoonka dhex arkaysiin Sasaaro daya ku dayga gatay naftayda dhowrto digara intaas kadib waxa arin soo kala dhex galay suldaanka Naciimo Joker waxaanu kula taliyay in ninkeeda Faysal Xawaase iska sugato Naciimo Joker ilaahay waa isu keeni karaa aan iska dhaafto ninkan kale fiidiyo romantic la jirayso waxaan hadalkiisa kamid ahay Joker aad baan ku salaamay oo aniga suldaanka bariga galbeedka ee Bartamaha Afrika horta ninkan xasan nabad istaba socotay ninoo ku qabaa walaashay baa tahay kuma caayo laakiin waxyaabahan kale ka noqo walaal diintu ma ogolo ninkaaga iska sugo iimaanso Faysal Xawaase Naciimo Joker hadalkii suldaanka dhagta laqoma isasiin waxayna halkaas ka sii wadatay fiidiyoyaashii romantic ah oo ay la jilaysay saaxiibkeeda cusub waxayna ku sii dartay waliba inay shaaciso in ay kala tageen Faysal Xawaase iyadu sida bugeedii ku soo qortay Farxi Kabayare waxay sheegtay in Faysal Xawaase iyo Naciimo Joker ay kala tageen oo Naciimo Joker ay tahay mid garoob ah laakiin Faysal Xawaase uu aamusay marow dhowr bil ma dhama laakiin bil iyo bariyo waay ka bacdi ayuu live soo galay hadda waxa uu sheegay in Naciimo Joker ay tahay qof maqaalifo ah oo iyada oo la qabo nin kale iska aaday oo sana furin asagoo warkii haayana way marka uu soo galayo ninkii cusbay oo Naciimo Joker ay sheegtay inuu qabo ayaa comment u soo qoray waxa uu ku sheegay inuu yahay mid wax matara ah oo aan waxba geeyno laga soo cararay waxa uu ugu jawaabay si cara leh ودولي وقف عن شخصيات الهين 10 دقيقة كبعد واحد كنت سيا قف كان إنه شخصيات الهين بان كنت سيا 10 دقيقة كبعد مركي ماشى كبح لو وحنا كوسو قليا لوقا أنت هالك قاعد لوقا هاي سوق البلاد ضمير باتاي